kulan wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu waaweyn qodobada aan idinkugu hayno waxaa ka mid noqonaya wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya oo hadal la yaab la sheegay iyo sidoo kale saraakiil badan oo lagu dilay furmaha hore dagaalka oo markaan lagu eedeynayo dowladda dhexe ee Soomaaliya maxay tahay sababta xogta ayaan idinkaga haynaa qodobada kale waxaa ka mid noqonaya madaxweyne Laftagareen oo shirkad ka dhisan dalka Kuwait ku wareejin raba dekada magaalada Prawe ee gobolka Shabeellaha Hoose xog iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ayaan idinkaga haynaa howlgalla saacadii la soo dhaafay ciidamada dowladda ay sameeyeen qodobada wixii nagu soo kordhaa ayaad saaxiibayaal daawan doontaan isku soo noqod wanaagsan galab wanaagsan saaxiibayaal haddii aanu ku bilowno wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa isagu waxa uu si cad u sheegay in xubnihii saraakiisha ee gudaha caasimadda dadka shacabka ku dhibiyay sidoo kale siyaasiyiinta markaan loo raray furimaha hore ee dagaalka si halkaasi loogu mashquuliyo wasiir Xasan Macalin oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa jeediya ayaa waxa uu sheegay in saraakiisha iyagu markii hore fowdada iyo dhibaatada ku hayay gudaha caasimadda ee Muqdisho gobolada dalka gaar ahaan furimaha la geeyay si halkaasi dagaal ay u galaan balse su'aalo badan ayaa hadalka wasiirka dul hoganaya oo ku aadan inay jiraan saraakiil badan oo iyagu lagu dilay furimaha dagaalka sanadkii ugu dambeeyay saraakiil caan ah oo Shaah Macab uu kamid ahaa Farxaan Qaroole iyo sidoo kale kuwa kale ayaa lagu waayay dagaaladii ugu dambeeyay ee muddadii Xasan Sheekh xilhayntiisa dambe ay jirtay marka la eego siyaasiyiinta ayaa xilligan waxay dhaliil xooggan u muujinayaan hadalka ka soo yeeray wasiir Xasan Macalin ee ku aadan in siyaasiyiintii markii hore farmaajo taabacsanaa furimaha dagaalka la geeyay taas oo loo fasiran karo in qof walba oo xilligaasi mucaarad ahaa isla markaana ka soo horjeeda dowladda hadda jirta in furimaha la geeyo si loo kharijiyo waa arrin gaf ku ah marka la eego dowladnimada Soomaaliya iyo in wasiir ka tirsan xukuumadda uu soo istaago hadalka ka sheego baraha bulshada ayuu hadalkiisa si weyn u qabsaday iyadoo laga codsaday wasiir Xasan Macalin iyo sidoo kale dowladda hadda jirtaba in raaligelin buuxda ay ka bixiyaan hadalka wasiirka ka soo yeeray maadaama uu sheegay saraakiil badan oo xilligii farmaajo ee dalkan culaysyo badan ku haysa siyaasiyiinta furimaha la geeyay kadibna halka lagu waayay dowladda Soomaaliya ayaa iyadoo lagu sugayaa in guud ahaanba arrinka ay raaligelin ka bixiso balse waynu arki doonaa wax madaxweyne Xasan Sheekh iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Xamza ay sameeyaan markaan haddii aanu fiirino dekada macmalka ee magaalada Prawe ayaa la qorsheynayaa in dhawaan la dhiso mas'uuliyiin ka socda shirkad laga leeyahay dalka Kuwait iyo sidoo kale madaxweynaha Koonfur Galbeed oo kulmay ayaa isla gartay muddo 25 sano in shirkadaasi lagu wareejiyo waana arrin kale oo halisteeda la marka la eego marba haddii shirkad ajaaniba la rabo in maamul ka tirsan Soomaaliya uu isagu heshiis la gaaro isla markaana dekadii Prawe uu ku wareejiyo warkan ayaa la helay kadib kulan uu la yeeshay madaxweyne Laftagareen xubno ka tirsan